السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada habeen cusub iyo wellness with ikram. waxaan rabaa inaan ka hadlo mawduuc ku saabsan disability-ga or disability-ga waxa waaye kelmadda disability markaa maqashid qof oo waxa qof curyaan ah ama waaye ama qof oo like laba nooc u kala baxsan tahay. waxaa jirta physical disability qof qabto so mesela qof oo la qof oo wax dhagaha lahayn dhagoole qof oo hadlaynin qof oo kursi ku socoto wheelchair anada deelshay qof kasta oo dunyada ku nool way martaa waqti ee disabled tahay waxyaabaha qaarkood ay qabsan karin. waxaa dhici karta inay lug kaa jabto so even though temporary tahay waqti gaaban tahay laakiin waqtigaas disabled tahay ma awoodid inaa waxyaabaha qaarkood aa qabsatid ama caawinaada u baahan tahay. caawinaada ama ha noqoto qof inay ku caawinto ama ha noqoto inaa ulal ku taagsatid. iyo waxaa jirta mental disability so qof oo waxaa jirta qofka haddii maskaxdeeda ama ay dhiman tahay dadka oo developmental disability ku dhashtaan camal sida oo autism-ka iyo down syndrome-ka iyo cudurada oo just maskaxda hadday dhiman tahay waa lagu dhashtaa taas developmental disability waayo so qofkaas inta maskaxdiisa marka soo caloosha ku jiro ilmahaasi u koraysa maysan u dhammaystirmin oo maskaxdii wada complete maysan u subsamin. iyo qof oo waxaa jirto oo mental illness oo ku dhaco masalan cudurada schizophrenia-da bipolar-ka depression-ka to the point mar inuu gaaro severe oo qofka naftiisa take garay weyse ama naftiisa wax u qaban weyso. so the reason aan usoo qaata maanta mawduucan waxa waaye because waxaan rabaa inaan bedelno aragtida aan ku fiirinayna dadka oo curyaanka oo ama dhammaystirnayn oo wax ka dhiman yahay because dhaqan ahaana waxaan ka dhiganay dadka inaa curyaannimadooda ugu wacno oo jiisow dhahno oo ilay dhahno oo faruuray dhahno oo aan dhahno subxaan allah dhagoolkii indhoolkii qofkii waxay noqotay beheero waxaan gaarnay inaan magaci qofka iloobno maxamed haddii lagu dhaho maxamed kee aa dhehayso qofkiina ku dhaho waay waraa maxamed gacmi markaas subxaan allah it's really culture oo wuxuu noqday very insulting and waxaa iloobaynaa markasta anaga waxaan dhahaynaa muslim aan nahay diintan ku dhaqanaa laakiin waa ilowsannahay that horta dembiga aan galowno waqtiga markaan qofka curyaannimadiisa ugu wacayno waxaa ilowsannahay inaa anaga qofka oo ilaahay ka cabsanayso oo curyaanka inuu naga ajir badan yahay because masalan isagoo jiis markuu qofka rafaadayo oo weysaysanayo soo u dugto inuu more ajir helooyo dan qofka oo lixda lixaad qabto oo weysaysanayso. okay waa iloobaynaa xadiisa waxaa jira laga soo uroriyey caaisha radiallahu canha oo waxay dhahday rasuulka wuxuu yiri rafaca alqalamu can halaath عن النائم حتى يستيقظ عن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. so رفع القلم عن ثلاثة محيطة هاي so قلنك سدح قف الله يخاذي ولا هاي قلنك محوية هاي so قلنك of course قلنك أو حواي قرينتج أو ملايكتين إني قريس قلادات كينا مالين كستو يد good deeds كأنصوب بينو وحي في عن وحي حنا ملايكا إنه قريسو so سدح قف أو لقى فيه دنبجة وحواي kan hurdaayo ilaa uu ka soo kaco qalad ma laha kaas. cunuga yar ilaa uu ka koro uu qaangaar ka gaaro kaas dembi ma laha qaladaadkiisa waa cafis. iyo majnuunka ilaa uu caqli ka yeeshta ama ka raysto so qofka waalan ama qofka oo maskaxda ka jiran dembi ma laha qaladaadkii uu galo ilaahay agtiis cafisay ka yihiin. سورة الحجرات إلهي وحوكو يري أوكله يا أيها الذين آمنوا لا يسقر قوما عن قوما عسى أن يكونوا خيرا منهم يعني تديو مسلم قوم كله كو جيستينن ما كفي عن إنه كفي عني هنا دعكرته. أوكي of course وين كفي عني هنا مركو قفك وإلهي كعبسنا أو سجد دبل أجر أوهلو أنا كان هالأجر أهلو because لحنا لهذا قبنا that is ونجا في عيني هاي we have to work hard double إن أنا كشقينا وأسي وأجرك وسق وهلا أنا وأهلنا قفك إن دولها ونجا أجر بدنيا because guess what وحياة بدن أو إسق إنديس وكفير هين أجر because إنما قبو so فواحش تأي حمانته أو معنا كستهورتين طالع إسق ما أركوي وكأسترني هاي
ما naga fiican yahay mise may wuu naga fiican yahay of course so ayadaas weli waxay sii wadee walaa tanaabazu bilalqaab آية سورة الحجرات مركا آية يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم هداء لما يسترد كل جد ولا تنابسوا بالألقاب أكو جرت تبينيس اسكو وعنا مقعيو قفك وش وعنا وحيابا أي نعيان أما إيه جعلين هنا هبلوس جيسو علولي قعمي إلي هذه هنا ساس you know هذه قفك أو كي والله يصوص عضو سبحان الله we need inaan bedelno dhaqankeena waxa oo very sad oo dadka actually naga dhiga dad really like qof waxaa jirta out of ignorance wax u dhahdo you know ignorant qofka jaahilka okay oo ku dhawaaqaysa hadallada oo jiisow ama gacmay dhehayso oo jaahilnimo yani isgooni waay laakiin dadka mutacalimiinta dad mustaqafiin dad oo western society ku noolaadeen oo arkeen qaladaadka yani sida loola dhaqmo dadka oo disabled iyo dadka oo dhiman oo wili laakiin ku si dhaqmaysa ama yacbahinin you know we all have mas'uuliyadna saaran markii aan aragno qof oo qof kale ku xadgudbayso inaan yacdahno inaan iscelino inaan isqabano waajibna saaran waaye وحواي حقا إنك هذا الشيء واجب كسارا as a Muslim as a human بني آدم so وحا أرومات إنا so conclude قراية وحواي إنا مسؤولية دينا كبحنا مركو walaalkeena qalad ku jiro oo wiil kale walaalkeena ama gabar walaasheena oo disability geeda ugu wacay inaan yacdahno horto mid anagan is ilaalinaan afkeena iyo adankeena aan dadka kala leexino aan xasuusnaano that ilaahay uma waanin dankaanayto inuu xibnihiisa kaamil ka dhigo inuu maskaxdiisa kaamil ka dhigo laakiin waxa saas looga dhigay inaan anaga ku cibro qaadano so aan cibro ku qaadano aan afkeena ka ilaalina dadka because depressionka anaga depression dadku sii ridayno markii aan u treat gareyno inay dad nool ahayn camal so afkeena iyo adankeena dadka aan ka leexsano inaan dadka u garaawno aan u duceyno aan alxamdulillah dhahno markii aan aragno qof oo maskaxdiisa dhiman tahay oo jirkiisa dhiman yahay alxamdulillah inaan dhahno again because ina ilaahay u mahad celino waayo wa in shakartum la aziidannakum so ilaahay markaan dhahno waa mahadsan tahay ilaahay u mahad celino wuunoo barakeena xubnaheena wuunoo barakeena caqligeena alxamdulillah ilaahay intii dhibannaha u fududeeyo waa mahadsantihiin iyo waa nasbad ikraam asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu